السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسودو channel كيجا مايا بيوتي. هذا تكون عصبتي channel كيجا فضلا هاي لوين لايك كومنتس كا سبسكرايب كا سبسكرايب كرا إن شاء الله. مانتا سوارك السيمبا وحويا ميك اب لوك عن تكنيك عن معلومة استعمالي تاني كم مقنع channel هذا كلام بتيك توك أيان كوتشري إن بدن مركا ميك اب لوك أيان إن بدن استعمالي وتكنيك عصب عن استعمالي مع مركا آدي بان وهلاي مركا إن شاء الله من يقول دارين يبقى introduction كا حاجة لو بين subscribe كا like iyo comment كان يقول سوقرا فيديو قاعدون سي next إن نسميه مركا داوشوا عن إن شاء الله يوينو فيديو قدام بي عن سميه ما هو Friday جمعة بجامعي قام ولي حرين هاي لكن إن شاء الله راح نسمعنا ميك اب waxaan ku raysiinaa skincare although saka early in the morning ayaan sameeyay skincare so waxaan ku horaysiinaa moisturizer and actually moisturizer runtii waxaan doonaa inaan ku bilaabo eye creamka amaanta isticmaalay waxa weeye actually markastaan isticmaalaa and waxa weeye Fenty skin flash nap eye cream saasuu eegyahay and waxaan doonayaa indaa hoosiisa inaan in yar actually today and ring finger كيغان استعماليا and then waan yar marinaya indaa hoostiisa saasaan indaa hoostiisa u marinaya ku massage garanaya soo arkisiinba okay and then imika waxaan isticmaalayaa fresh rose deep hydration oil-infused serum marka waan ruuxayaa horta saas u eegyahayna soo arkisiinba ana waxaan doonayaa wejiga oo dhan inaan ku pat gareeyo so intaa just pat products were amazing. I feel like makeup kayga wuxuu soo baxaa markaan very good underneath makeup aan horta aad baan u jecel yahay makeup kaygana si fiican buu soo baxaa so waa kaa serumkii waan marsanay imika waxaan marsanayaa la Roche Posay waa moisturizer kayga moisturizerkan markastaan isticmaalaa every single day waa daily moisturizer kayga subaxdii ayaan isticmaalaa laakiin waan ku yar celinaynaa because hydration badan buu i siinayaa and underneath makeup ka marka anigu productkan aad baan u jecel yahay I think waa productka aan everyday like markuu iga damaado waan Camo ku iibsadaa so waa kaas waxaan sameynayaa markaa waan usoo noqon doonaa maanta technique baan isticmaaliyay quite a lot maalmahan waxaan sameynayaa bal eyeshadowgayga ayaan soo marsanayaa and then waan usoo noqon doonaa okay and eyeshadowgii waan soo marsaday soo arkisiinba waxa weeyaan bunni dahabi ayaan maanta marsaday labada eyeshadow aan isticmaalay waxa weeyaan Anastasia Beverly Hills eyeshadow marka sidaas uu eegyahay markaan furana saas uu eegyahay waxaan isticmaalay bunnigan carrot la yiraahdo ayaan isticmaalay and then bunnigaad iyo waxaan isticmaalay ginger baan ku horeysiyay بعدين مكدمنا waxaan isticmaalay credit ayaan isticmaalay dahabigan isticmaalna waxa weeyaan NARS palette marka waa NARS cosmetics ayaan palettekan waxaa la dhahaa extreme effects baan isticmaalay waxa weeyaan dahabi marka kanaan ku horeysiyay makadamana kanaan dul mariyay very beautiful marka brusheskan isticmaalna waxa weeyaan Morphe san eye lookan u create garay Morphe baan isticmaalay marka waxaan sameynayaa ku mask saarayaa waxaan maan doonayn inay daafo accurate ba maanta doonay inuu noqdo eyeshadowgayga okay imika wejiga ayaan bilaabanaa hadduu tol markaan wada dhameeno ayaan eyebrowska sameyn doonaa imika waxaan ku horeysiinaya marka waxaan isticmaalayaa Fenty Beauty Bright Fix Eye Brightener in pumpkin marka saas uu eegyahay shade-kuna pumpkin baa la dhahaa I don't know inaad si fiican arki kartiin
shade-kan waa pumpkin marka waxaan doonaynaa bas mariyo taashashkayga iyo chinka areeraha yar madow iyo taashashka so waa kaas marka waxaan soo qaadanayaa one of my Zoefa buffer brushes 104 baa la dhahaa and you know brushkan waxaan ku jecelayaa like si fiican buu u blend garayaa so you know concealer-kan si fiican ayuu blend garayaa ma jecli orange waa very very bright and marka hadda si fiican brush fiican haddaad haysan you know foundationka ayaa ka arki kartaa underneath marka waxaan ku dadaalaa inaan si fiican u blend gareeyo markaas waan blend gareeyay iminka waxaan soo qaadanayaa foundationkayga maanta foundationka aan isticmaalay waxa weeyaan NARS Natural Radiant Longwear Foundation shadekan waxa weeyaan Macao saas u eegyahay waan ruuxayaa soo arkaysiinba wejiga oo dhan ayaan marinay marka iminka waxaan sameynayaa waan blend gareynayaa foundation brushka aan isticmaalay waxa weeyaan Morphe M439 brush M439 brush ayaan marka ku blend gareynayaa soo arkaysiinba waxaan doonayaa inaan wejigayga spray gareeyo like technique si fiican buu igu shaqeynayaa imika ahaan maalmahanba Fenty Skin and what age you refreshing spray weeyaan marka soo arkaysiinba makeupka weli waa qoyaan marka saas ayaan ugu buufinayaa just you know intaan blend gareynayo soo arkaysiinba I feel like makeupkaygu si fiican ayuu usoo baxayay markaan systemkan isticmaalo marka maybe inunkuna waad isku dayi kartiin even concealerka markaan isticmaalayo stepkan baan sameeyaa marka waa ka xijaabkayga dhacay waxaan sameynayaa bal xijaabkan iska soo saari doonaa adna waan igu soo noqon doonaa anigoo wejigayga wala blended ah waan ugu soo noqday to be honest waxaan siri maadaama aad you know xijaabka iska saartay iska damee contourka concealerka waayo hadda tolana waxay iran doontaa waan ku celin doonaa waxaan garan lahaa waan soo yara dhammayn doonaa concealerka waan iga soo noqon doonaa marka waxaan siri marun isdaafi marka soo arkaysiinba contourkii waan jaray waan blend gareeyay imikana concealer baan isticmaalay so productyaasha hadda after baan itusi doonaa markaan yar blend gareeyo marka waxaan isticmaalayaa spongekan from Morphe sponge weeyaan sponge cajiiba weeyaan marka waxaan sameyn doonaa imika bas intaan isaga ayaan spray garanayaa so again Fenty refreshing spray baan isticmaalayaa and then soo arkaysiinba waxaan doonayaa inuu ahaado like wet indhaha hoosiisa rightdan isku egaya laakiin indhaha hoosiisa soo arkaysiin ayaan ku blend garanayaa so labada dhinacba ayaan saa ugu blend garanayaa I feel like technique-gan aad iyo aad ayuu makeup gamekayga you know fiicnaysiiyey marka make sure inaad you know spray garaysiin brushka I don't know inuu yahay any spray amba inuu refreshing spraygan yahay but I feel like difference badan baan ku arkay makeupkayga markaan technique-gan isticmaalay maalin baan sirin maad spray garaysa brushka spongeka and then waan sameeyey waxaan ku yidhi makeupkaygii wow buu noqday si fiican baan usoo blend garanayaa makeupka wow concealerka ayaan you know time badan qaadan doonaa inaan blend gareeyo marka waan ugu soo noqon doonaa insha allah okay soo arkaysiinba wejigii marka waan blend gareeyay concealerkii waan blend gareeyay imikaan tusi doonaa actually so concealerka aan isticmaalay waxa weeyaan Elf Hydrating Camo Concealer Satin Finish in shade Deep Caramel and saas uu eegyahay waxa weeyaan waa very very good I really like it and saa markastaba dee linkada oo dhan hoose ku qoran yihiin marka xaggaasa ka iibsan kartiin and then Boldness Way Concealer ayaan in yar mariyay uun xaggan yare koonaha ayaan mariyay just to brighten my under eye waxaan ka helaa maalmahan bright under eye-gayga indhaha hoosiisa inuu ahaado bright I never had to say bright in Somali cookie marka shadeka waxaa la dhahaa cookie
waa kaas saas u eegyahay. Again linkada oo dhan maanta wax kasta aan isticmaalayo haddaan heli karo linkada xagga laga iibsan karo wax kaste hoos ku qoran yahay xagga descriptionka. marka si fiican baan u blend garay soo arkaysiinba. Oh yeah, contourka aan isticmaalay waxa weeyaan Huda Beauty okay baabacay Huda unbaa ku qoran laakiin Beauty ayaa xaggana ka maqan. waxa weeyaan Tantour contour and bronzing cream ayaan ku gooyay soo arkaysiinba. And then brushka aan isticmaalay waxa weeyaan Makeup by Ariel brushes in collaboration with Morphe. marka brusheskaas ayaan isticmaalaa iyo like basically mainly brusheskay waxa weeyaan Morphe brushes baan isticmaalaa. And then the odd here and there brushes actually kuwa aan aad u jecel waxa weeyaan Real Technique na aad baan uga helaa. marka anyways maanta videoga ma aha brushes maka hadlayo. imika waxaan doonayaa in aan bake gareeyo. Well, not bake but waxaan doonayaa inaan isticmaalo beauty blenderkayga xag dhinacan ayaan doonayaa inaan so easy bake loose baking and setting powder. inagu waxaan u isticmaalnaa as a setting powder. To be honest baking in yar baan sameyn doonaa waa kan saas u eegyahay. shadeka aan isticmaalo anigu waxa weeyaan blondie baan in badan isticmaalay. To be honest waxaan haystaa 3 xabdood baan u maleynayaa mise 4 oo Huda Beauty easy bake marka kan ayaan maalimahan aad u isticmaalayay. marka again waxaan soo qaadanayaa dhinacan and then waan saas ayaan uga buuxinayaa powderka soo arkaysiinba. then waan ku tuujinayaa so ilayla daawada soo arkaysiinba waan ku tuujinayaa. Okay, so waan ku tuujinayaa waa ka concealerkaygu maanta ilaa xaggan buu joogaa. marka again xijaabkaas ka yara degi doonaa and si fiican baan u beegaranayaa laakiin waad arkaysiin systemka aan isticmaalayo. haddana moor baan soo qaadanayaa and then waan ku tuujinayaa so saas ayaan marinayaa saasaan ugu tuujinayaa waad arkaysiin and then waa ka and then xaggan baan jiri doonaa laakiin product more baan soo qaadan doonaa. markaad waa aragtiin baan u maleynayaa systemka aan isticmaalo ka su'aalo badan baa xagga TikTok laga weydiiyay maanta soo videogan baan ii sameynayaa waan ugu soo noqon doonaa imika si fiican baan u beegareyn doonaa. markaan actually beegarayona waxaan sameynaya xirabahaygaan soo sameyn doonaa and then waan ugu soo noqon doonaa. waan ugu soo noqday soo arkaysiinba eyebrowskayga waan sameeyey guys powder baa iga buuxa wejiga. waxaan sameeyey Makeup by Ariel in collaboration with Morphe brushkan waxaa la dhahaa I love this brush A21 ayaan best powderkii oo dhan ka wala masaxay wejiga. après marka dambena waxaan sameeyey Charlotte Tilbury the best weeyaan I love this product waxa weeyaan Airbrush flawless finish weeyaan. marka kan ayaan intaan saas u eegyahay kan marka intaan soo qaaday ayaan sida indhaha hoostiis u mariyay soo arkaysiinba. indhaha hoostiisa maaha actually meel kasta aan conceal garayay ayaan dul mariyay so that's why powder badan baa iga buuxa. bronzerka so Morphe Glamabronze in Megastar saas u eegyahay ayaan bal wejigan ku bronze garanayaa. reegeen yaraa baan isticmaalanaa and then waxaan sameyn doonaa blush baan isticmaali doonaa. so okay brushkii again waxa weeyaan Makeup by Ariel and Morphe A58 weyn brushkan and then saasaan usoo qaadanayaa meeshii aan contour garanay umaan dul marinayaa soo arkaysiinba waa kaas. waxaan sameyn doonaa bal waan ugu soo noqon doonaa waayo xijaabkan haddana iskala saari doonaa because contourka ilaa xaggan ayuu contourkaygu ka bilaabmaa so intaasoo dhan baa ka maqan inaan
you know mariyo bronzer marka bal waan ugu soo noqon doonaa imika waxaan marsanayaa bal blushkayga so Fenty Beauty cream blush yaa la dhahaa in Rose Latte Cheeks Out cream blush in Rose Latte number 10 marka saasuu eegyahay and then shade kuna saasuu eegyahay marka kan ayaan bal cheekskayga marinaya imika I feel like Gucci was so qaleel but inshallah waan hagaajin doonaa so waan dul marinayna cheekskayga my cheeks and start marinayna waa shade yaro cajiiba like it's qofka soo kusoo baxaya hadad ani iga sii madowdahay you know hadad iga caddahay iga castahay waa kusoo baxaysa I feel like we're just the perfect blusher anyways waxaan samayn doonaa imika and powderkii Charlotte Tilbury ayaan bal dul yar marinayaa and xaggan so again intaan spray garin wejiga ayaan yar dul marinaynaa so arkaysiinba and then imika waxaan samayn doonaa refreshing spraygii ayaan wejiga ku refresh garanaynaa bal soo yar celinaynaa wejigii and waxaan gaarnay xilligii furuuraha aan lipstick marsananay lip linerkii marka I don't know today waxaan marsado ma garanaya I do waxaan garanayaa inaan doonayo inaan marsado lip gloss but lip linerka aan isticmaalino and to be honest waxaan doonaya inaan isticmaalo shall I okay waxaan isticmaalayaa KKW Beauty I know imika heli kartiin I know linkada lip liners kan ma samayn karo because ma jirto like website-kii khalaas everything Kim Kardashian Kim K you know Kim KKW Beauty waxaan u baahanahay inuu soo noqdo marka yeah ha so labadan lip liner baan marsanaya waxaan ku horeysinayaa waxaa la dhahaa kan nude 2.5 ayaan ku horeysinayaa waxaan ku xigsiinayaa KKW Beauty 90s chick so ila daawada insha Allah kalaan soo qaadanayaa 90s chick waan dul marinayaa lip linerkii hore ayaan dul marinayaa waa kaas lip linerkii waan marsanay imika gloss baan doonay inaan marsado I think glosska aan maanta marsanayno waxa weeye NYX butter gloss ayaan doonay inaan marsado I have so many like kuwa badan baan haystaa so arkaysiinba I think afartan waa kuwa ka badanna waan haystaa marka bal waxaan gloss after baan marinaa mise waxaan isticmaali doonaa NYX soft matte lip cream in Cape Town ayaan furuuraha yar marinayaa so xagga dahda ayaan marinayaa bal laakiin imkeen waxa weeye inaan gloss dul marino so in yar baan yar isticmaalayaa bas and then waan ku blend garanayaa and then glosska aan isticmaalay waxa weeyaan butter gloss NYX butter gloss and fortune cookie so kuwaan iska dhigo fortune cookie saasuu eegaya fortune cookie ayaan furuurahayga oo dhan dul marinayaa waan soo yara duweyn doonaa in yar saa si fiican wejigaygu aragtiin marka waxaan sameynaya imika waan spray garanayaa wejiga and then labada spray aan maanta isticmaalay waxa weeyaan Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray saasuu egyahay so kanaan ku horeysiinayaa après marka dambena waxaan ku xigsiinayaa Continuous Setting Mist waa kan ayaan ku xigsiinaya markaa ila daawada insha Allah
وكاس وان يرسو نابل إنو إنجاجو وشو. I feel like I'm so zoomed in. Okay, imika waxaan sameynayaa mascara aan marsanayaa. Mascarada aan maanta marsanayo, actually mascarada aan markasta marsado waxa weeyaan NARS Climax Extreme Mascara, and then lasheskayga ayaan soo gashanayaa. So in yar baan jeclahay inaan yar mariyo, because I feel like in yar korna anu yara qaadan baan baahan yahay bas. And that's it. And then waxaan soo qaadanayaa lasheskayga, and then lasheskayga soo gashanayaa. And waa kaas waan damiyay makeup lookii soo arkaysiinba oo finished, and eyelasheskii baan soo gashtay, and that's about it. And intii oo dhanna waan ila socodsiiyay. Waxaan marsaday actually highlighterka aan isticmaalno waxa weeyaan gold digger ayaa la dhahaa. Highlighter saasuu eegyahay, and also maanta primer man marsan. Marka I don't know, I feel like makeupka weli waa iska okay, laakiin haddaan primer marsan lahaa I feel like makeupkayga it would have popped more. Wuu sii qurux badnaan lahaa, and uu sii qurux badnaan lahaa haddaan primerna marsan lahaa, and especially primerkan haysto Milk Hydrating Primer. Absolutely very good. And marka aad ma masantahay dad xaggan soo gaartay YouTube videogayga maanta, and fadlan ha iloobeen like-ga, comment-ka iyo subscribe-ka. Comment-ka igu soo qor waxaad doonaysiin next amba like next makeup look aan nii sameeyo. Marka comment-ka igu soo qora makeup look aad doonaysiin aan sameeyo, and then next videoga aan sameeyo ayaan sameyn doonaa insha Allah. Marka social media-gana iga follow gare. TikTok waan kula jiraa, oo TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook waan kula jiraa. Marka iga wala follow gare insha Allah. Wayno videoga dambe aan sameeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.